وما هي حديد ككده حيا يهود هي يوروب أما حديد كده حيا يهود هي إسرائيل سيدابا يسوقوا قنعيين إسرائيل يوروب إن يسيدان أطاقرتا يواجهوا نقضان هذا إنه يقولون مسيحية دي هراء سيب الله بدي قوله أما أرثوذكس أما كاثوليكها waxay rumaysanaayeen ciise inuu sixirroolo ahaa bidcoolo ahaa fitna dawladda uu ku wado hooyadiina inay zaaniye tahay dabeetana maxkamadoodii la odhan jiray sanhadariyiintu waa 70 oday oo 70kii nebi muuse raacay bay ku qiimeeyaan maxkamadda ilaahay nimanka yuhuudeed oo ka kooban 70 oday iyo kaahina isugu jira iyo boobkooda ama wadaadkooda ugu weyn ayaa waxay go'aamiyeen nabiyullaahi ciisa iyo laba tuugo kale saddexda in la salbiyo nabi ciise iyo laba tuuga baa markaasi la salbiyay iyagu may salbin karaynin ninkii romanska meesha uga talinayay bay u tageeno Pilatus la yiraahdo waxay yiraahdeen waxaanu gaadhnay xukuma saddexdan qof in la salbiyo waxaanay lahaayeen iyagu xukum daati iyo wax eego hoose boqorkaasi wuxuu ku yiri markaa anigu waxaan u arkayaa inuu bari yahay ninkan aleedin hal la salbiyo hubiya arrinka kan waxay yiraahdeen way dhacaankee damuhu calayna wa ala awlaadina dhiigiisa anaga dusha ku qaadnay iyo caruurtayaduba ciise hal dilo waana ka ilaahay quraanka ku tilmaamayo وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يدو يهودي أي ساسي اعتراف سنتي باعترافهم إليين عيسى وادل هو يدينا يعيبتك الشيغيان تلمود كودنا وقرية هي عيسى المسيحين دينتي يهود كر الدوبي oo sana macaabudo masiix kasto dunida ku noolna inuu wathani aduun lillahi wa lil yahuudi yahay talmuudkooda ku qoran waxa isqaban la markaas haduu arinku sida yahay iyo hadana maanta kristanku inuu taageero xaqay ka soo baxday cadaa shadiida ba u dhaxeeyay yahuud quraankuna waa ka tilmaamaya وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود مسيحيين markay meesha haysteen way ka saareen Baytul Qudus iyo Falastiin iyo waxaan oo dhan waxa ku soo celiyay 612 dawladii Bershiya ayaa ku soo celisay yahuudi la socotay waxa la yiraahdaa ilaa 60,000 oo kristan ay Qudus gudaheeda ku dileen baa la yiraahdaa kiniisatul qiyaamana dabbay qabadsiiyeen وحدب تبنيه سنة كدب سو عليي هيراكلس isna waa ka argutoon nimankiina waa laayay kristanna meeshu ku soo celiyay yuhuudna wuu ka saaray falastiin dhammaanteedba waxa yuhuudi labaad soo noqotay beenid xuruub saliibiya waqtigeedii laakiin xuruub saliibiya kristan ba ku soo noqday yuhuudiyana waa u diideen marka qura ee taariikhda loo ogolaaday inay falastiin yimaadaan waa salaaxudiin al-ayyubi waqtigiisii markii ay joogtay inta kadib hadaba waxa soo baxay madhab cusub oo diineed oo protestant la yiraahdo madhabkaasi cusubi waxa uu leeyahay fikrada yuhuudiinay ammaanayn ee wax dambiya inaan korkooda la saarin bal waxay ku dirqiyeen hatta Vatican inuu ka noqdo inuu ka bari yeelo yuhuudda masiix sidaytani u dhacday marka Martin Luther waa nin wadaad u dhashay wadanka Jarmal dabeetana madhabkan buu la yimi Calvin nin la yiraahdo Francis taageeray Protestantka dadka la yiraahdo ilaa 7 branch 7 caayiladood bay u qaybsamaan 28 ilaa 40 madhab ama kiniisadina way hoos timaadaa waxay kaga gedisan yihiin
عقائد عصبة إلي ما دينو كو waxay kaga gadisan yihiin inaan loo baahnayn wadaadkii boobkee dambiga dhaafi jiray waxay yidhaahdeen qof wal oo ciise rumeeya ciise dambigiisa dhaafaya mar haddaad rumayso inuu mukhallis yahay intaasaa kugu filan bay leeyihin camalba looma baahna kale rumayntaasi baa dembigaaga lagu dhaafaya laba waxay la yimaadeen sultadii tacliimiga ahayd maalan katholigu wuxuu rumaysnaa boobkunbaa fasiri kara kitaabka سادرادت كون سنادود dadku ma yara kitaabkuba meel u yaalo wuxuu qodhay dhex yaala kiniisada wuxuu baana fasir karayay boobka iyo gruubkiis waxa intaana waxba kama jiraan qof waliba kitaabka uu fasiran kara waanu akhrisan kara waxay ahayd wadaadada diintu inaanay guursanin waxay dhaadeen waxba kama jiraan wadaad kasto oo protestant ah waa guursan kara waxay ahayd injiilo qura in la haysto waxay dhaadeen waxba kama jiraan ahd alqadiim iyo ahd aljadiid oo wada socda waa in la haystaa king james version bay la yimaadeen iyo arrimo lamida si dadku kitaabka u akhrisan kara waxay faafiyeen yurub markii ay ka bilaabeen tacliimka sida uga jaamacaadka qadiimka ee yurub ama maraykan dhammaantood wadaadda kristana sameeyey harvard university john harvard baa sameeyey in la yidhaahdo wadaad aha marka la eego جامعة ييل جماعة من رجال الدين بس سميسي مركا لقى برينستون كنيسة المشيخية أيا سميسي بنسلفانيا يونيفرسيتي مركا لقى كنيسة الأسقفية بس سميسي جامعة كولومبيا الكنيسة الأسقفية بس سميسي جامعة براون الكنيسة المعمدية بس سميسي كامبريدج يونيفرسيتي أوكسفورد يونيفرسيتي لما أنت دوح السمية جامعات كائن الله أمانه wadaadadii protestant-ka ahaa oo rabay dadku inay wax baran karaan inta waxa raacda duwal dhan oo Scandinavian-ka Canada Australia Ingiriiska Maraykan duwal dhan baa qaatay madhabkan protestant-ka innaga maxay naga khuseeyo madhabkan protestant-ka markaas aanu sheegaynaa waxay naga khuseeyo saddex shay oo aanu kristanku rumaysnayn bay iyagu rumeeyeen saddexda shay waxa kamid ah kow يهودين يتي شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه يهودي شعب لهي دورتي أول مضن ومضنان طاها يستينيهين كاللبات واحدة يهود إلهي باب بلن أبياشد وسيي إبراهيم إسحاق يعقوب عهد أبدي يكسيي فلسطينين يقولين هسنوا عقيدة الدين هذا بروتستان أورد من رويسين كصدحات waxay dhahdeen ciise ilaah ciise sidoo soo noqdo kaba yazcamuun ciise wuu imanaya kun sanadood oo dambe dunidu barwaaqo ku noolaanaysa soo noqon maayo haddaan saddex shay la helin ciise soo noqon maayo haddaan saddex shay la helin kow reer banu israa'iil in falastiin la siiyo oo ay qabsadaan falastiin laba qudus inay ka taliyaan saddex هيكلكي إن لقدسه بناء الهيكل القدس لقدسه صدح ذا الشيء أرد عمو ياني نبي عيسى يقول شيء يندي إله بكتل المام ياني صار نقول ما يان سيدا أوجد سلو ددتشيو إلهي إنه دب دريده وصار نقضه وين الدول ككريستان كإيقاتان مذهب كأورانيا فلسطين وين يهود لسيا بيت المقدس نوين يالتا هيكل كينا وين لقدسه هلك الكنيسة الكاثوليكية أما كنيسة الأرثوذكسية لبدا كنيسة دودا كلا الروميسنايين وارعهد قاسي واهرو داعي مسيح العيسى وي بينيين وادلين سيقو قبان إن إساقا مخلص إلهي دولك وكيني بيليين عيسى أنا شاقي بيليين إن أورشليم لخرابين أيو هيكل كاين للدمين أيو يهود لإري أيو دنبي قودة درادي نبوءات كانت شيء سنبر هراي دعدو قرش نكي بقركي كتلينيي بيرشيا markii uu dib u qabsaday meesha tanbay nubuuadanina dhacday bay leeyeen nubuuadan baanu ka sugaynaa ma jirtay yuhuud waati lagu soo celiyay baytul maqdis mar labaad waati haykalka laga taagay tafsiirkiinan waxba kama jiraan bay leeyeen laakiin aqeedadani waa aqeedadii uu inta badan faafinayay alqadis agustin وانا عقيدة ما انت الروميسيين دولة مريكان دولة انجليز اسكندنافيان كاستراليا كندا
all Protestant people وعقيدة الروميسية عقيدة نقول ما يبلغت واحد جرا نمان كريستنا أو كسهيونيسن يهودا waxay ku tilmaamaan Christian Zionism baa la yiraahdaa Christian Zionism ku isaga ka adag yahuuda waa yahuuda raga asaasay intooda badan diinba ma haysan Herzl mulxid buu ahaa Beni Gurion mulxid buu ahaa Mayer habartii Golden Mayer mulxidad bay ahayd Moshe Dayan mulxid buu ahaa Weizmann madaxweynahoodii koowaad mulxid buu ahaa yani kullu intooda magac leh waxa la tilmaamaa odaygii beegan la oran jiro quraba wax salaad tukaday ku jiray beegan baa wax kiniisad tagay oo salaad tukaday ku jiray hatta isxaaq raabinkii gaabnaa mulxid buu ahaa bay leeyihiin marka diin ahaanba may u rumaysnayn laakiin nimanka diin ahaan u rumaysan bahashatan ay diinta ka tahay waa Christian Zionism-ka Christian Zionism-kani wuxuu bilaabmay waddanka Ingiriisku ka bilaabmay waddanka Ingiriis inuu kiniisadan Catholiga ka go'o waxa sabab u ahayd boqorkii Henry sideedaad la oran jiray ayaa u baahday islaantiisii inuu furo islaan kale guursado dabeetana kiniisadii baa diiday Romanski baa aqbali waayay dabeetana waddankaba uu ka jaray mid kale uu guursaday waa xaraan bay dhahayn talabadeed guursatay tii kale haddana ka takhalusay mid lix dumar uu guursaday kolba midna waa dilayay midna waa wuxuu oranayay guurkii hore aan asixin markaasuu mid kale iska guursanayay boqorkaasi markuu halkaa maray ayuu wuxuu u rogay Ingiriis oo dham inay injiiliyan noqdaan inay ka baxaanba kiniisadda Catholiga wadaadkii boobka ahna wuxuu yidhi Henry iyo wuxuu dhalay ilaa abadi la aabidin ilaahay naxariistiisa waa ka mamnuuc oo kiniisaddu tardi ayay isagana ku xukuntay waxa ka bilaabmay waddanka Ingiriiska مثلا ninkii la oran jiray Thomas Brightman waa nin caalim laahut yahuudi asalkiisuna ahaa kitaab uu qoray oo kaga warramayo axdaasta dhici doonta aakhiru zamaanka kitaabkiisa wuxuu ku soo bandhigay fikradii ahayd in allaha yuriidu cawdata alyahuudi ila falastiin wa an yaxkumu ilaahay wuxuu rabaa yahuudin falastiin lagu celiyo oo ay bayt almaqdis xukumaan oo haykalkii ay dib u taagaan si ciise u yimaado oo kun sannadood ciise dunida uu xukumi karo fikradda waxaa sii qaatay niman la yidhaahdo Puritans almutatahhiruun waa jamaaco protestanka ka mid ah oo ku dhawaaqaya hadda waqtigeenu joogno 350 sano ka hor in ka badan ay iyagu waxay faafinayeen fikradda ah yahuudinimada in la nooleeyo bal ee dawladda Ingiriis waxay u soo jeediyeen Tawraad in dastuur looga dhigo waddanka Ingiriiska Tawraad in dastuur looga dhigo waddanka Ingiriiska bay soo jeediyeen waxay soo nooleeyeen luqada cibriya waxay la baxeen magacyo cibriya ninkii la oran jiray majmuuca la yiraahdo Leverels ayaa fikradda keentay dawladda u keentay iyagoo leh Tawraad ha laga dhigo dastuurka waddanka Ingiriis inuu noqdo laba wadaad oo kale oo cilmi laahudka ku takhasusay ayaa iyana mudakara kala qoray oo dawladda Ingiriis u soo bandhigay iyagoo leh shacabka Ingiriis iyo shacabka Holland sharaf waxa ugu filan caruurtii reer banu Israa'iil inay doonyo ku soo qaadaan oo dhulkii Ilaahay u yabohay ay geeyaan waa 1649 marka dawladda Ingiriiska la hordhigayo barnaamijka in la soo raro yahuudo la geeyo Falastiin marka aynu eegno mafaahimtaasi jadiidka ah ninkii la oran jiray Cromwell waa ninkii thawrada ku sameeyay boqorkii Ingiriiska jamhuuriyaddii koowaad ee ka dhalata waddanka Ingiriiska markii la sameynayay wuxuu ka khudbadeeyay Whitehall meel la yiraahdo Westminster-ka u dhow waa 1655 waxa uu ku dhawaaqay yahuudda in Bariitaaniyana dib loogu soo celiyo waayo Ingiriiska qoladan hortood 3 qarni ka hor ayaa laga mamnuucay waddanka Ingiriiska in yahuudi degto dabeetana wuxuu soo tarxinaya oo boqorka u sheegay
in qaanuunkaa la saaro oo yuhuudi waddankan ay soo degi karto waxay yidhaahdaan Sir Henry Finch oo mustashaar qaanuuniya u ahaan jiray ninka boqorka Ingiriis ayaa 1621 isna buug buu qoray uu kaga warramayo the world grid restoration isna waxa uu kaga warramayaa yahuud al-umma al-yahuudiyya in la geeyo la ictiraafo waddan la siiyo soo duuduub faransiiskiya intii kaatolig ahayd si ay u gashayba iyagoo kaatoligiya ayaa iyana fikradda markii dambe ay ku faaftay ilaa iyo kutaabtoodii nin ka mid ah Philip Gentle nin la odhan jiray ayaa wuxuu soo jeediyey dowladda Faransiiska wuxuu jeediyey fikrada ah Qudus in Rome lagu bedesho yahuud si aynu Qudus u siino Rome aan muslimiinta siino markii dambe waa lagu kaco isagana waaba la deldelayay يعني فكرتها سي waxay soo abuurmeen waqti aad u horeey hatta hadaynu eegno falaasafadii ama udabadii Yurub Orshalim iyo siday ugu gabyayeen gabayayadoodii waaweynaa waxa kamid ah Milton Lord Byron William Beck Alexander Pope Coleridge George Eliot Jack Bussy Racine waxa soo dhami waa dadkii ku heesayay ku gabyayay أورشليم اليهودية حتى فلسفة وقت قال نولا كوا اللي يدعو آد بمشة تانية نوهد ليين باسكال باكميدا كانت باكميدا نيوتن باكميدا شاك روسو باكميدا سيدا كاتبة درجينا الشريف كتاب كذا يكون صابر نكتب وحاصل أنك نسوقين وحويا دولة دا يعني إنجليز عقيدة أن يهود ماشي لقول عليا بيقاضت شعب كبروتستان كينا ميلو دقن يبي فكرة سالقة دادعية إن بدن والله القلي ساي فكرة سيو أمال مرتو بوغاقا دو ترى بدن بالغا قري إن فكرة ساي هول مرتو مثلا مركانا يقنو لور شاتسبري وإيرال أوف شاتسبري شافتسبري ميالي دادا نين لورد وهانجري وحو قري دراسة صدن بيجكات كاكوبان oo uu soo bandhigayay madaxtooyada waddanka iyo dawladda Ingiriis waxay fikradaasi ka warramaysaa waa ninkii soo saaray eraygana watanun bila shacb li shacbin bila watan buu ka hadlaya waa awwal marra fi taariikh weedhan la maqlo waddan aan dad lahayn iyo dad aan dhul lahayn hal isla raadiyo buu leeyahay yuhuudi waa dad aan dhul lahayn waddan aan dad lahaynina wuxuu ka dhigayaa inuu yahay Falastiin فكرة عين كاسية سياسيين تي وينام الرجال الفكري في بريطانيا أو كمدي هاي دوك أوف كنت أو كمدي هاي رئيس الوزراء هذي جلاكستون لورنشري أي آدو قنعي فكرة دا سمودة كدح سعوتي إلى حد أي قاعدو إن السياسيين تهدو قنعان فكرة دا أورانيسا فلسطين وإن يهود سينا مصالح دا إنجليز كباي ayay u adeegaysaa oo dawladda Uthmaaniyana way daciifinaysaa dawlad Carabeed oo muslimo xoog leh inay dhalatana way diidaysaa marka waxa isku darsamay bay dhahan siyaasad mikafiliya iyo sahyuuniyada almasiixiya baa isku darsamay oo ah masaalix ay nimankii siyaasiyiintii ka dhex arkeen iyo nimankii Protestantka diin ahaan waxay ka dhex arkeen saadaradeed ayay fikradani xoogaysatay ilaa xad أي قادو مشاريع دولة أي صوبان دكتور إنه نقطه كتب هذا ترى بدنا أن هذا ولا آخري كرنا لقى قري مسألة ده وقت قاسي مثلا لورد بالمارستان لورد كلا هذا أو وزير خارجية وحي سمايستين إنجليزكو قنصليات بقدس كسمايستين waxaana loo sameeyay qunsuliyadda nin William Young la yiraahdo oo sahyuuni masiixiya ah waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo jaaliyadda yuhuudada Qudus degan waa 1838 taqriir buu soo diray dawladda Ingiriis uu sheegay meeshaba waxa yuhuud ka degan 9690 yuhuudaba meeshaba degan buu leeyahay Falastiin oo dhan وإنجليز كو حقوري ما مسلم حقوري
waliba ay qorayso safaaradda ingiriisiga meesha ku taallay taasi waxay abuurtay in dowladda ingiriis iyo boqortooyadoodii iyo waxoodii oo dhammeeyay arrimahaasi ku dadaalaan yahuuddu wakhtigaasi shakay ka qabeen inay falastiin degaan saddex sababood daraaddood waxay soo arkayeen inay ducafo yihiin hadday meesha tagaanna wixii yuhuudda hore ugu dhacay inay ku dhacayaan oo dad badan oo yuhuuda inay cuthmaaniyiinta iyo carabtu layn doonaan qodobka labaad waxay yuhuudda markaa ugu muuqatay tacaalimta talmuudkoodu inaanu dhigaynin waa hore waxa soo baxay nin la yidhaahdo ibnulkawkab ama barkuuba ay ku tilmaami jireen oo sheegtay masiixii inuu yahay muntadirkee yuhuudi ay sugaysay oo falastiin inay ku noqdaan isku dayey waa qabla alislaam 130 miilaadiga meelaha markay maraysay dabeetana imbaraatoorkii romaniya mariyey kadib waxay yidhahdeen wixii waagaa inugu dhacay mar labaad inuu inugu dhaco ma u diyaarnihin talmuud baana noo diidaysaa qodobka saddexaad waxay u arkayeen masiixa iyaguna sugayaan iyana masiix kale sugayaan masiixay sugayaan oo yimaada mooyaane inaanay bannaanayn yuhuudi inay ku noqoto meesha waana caqiidada ay hadda rumaysayiin malaayiin ka mida yuhuud waa kuwan israa'iil ka soo horjeeda ee yuhuudi waa caqiidada rumaysayiin laakiin qoladan sahyuuniyadu waxay ku qanciyeen sida wilaayatul faqiih shiicado kale cid ka sii wakiila in la heli karo meesha sii joogi karta in la heli karo waxaan ku soo koobi doonaa waqtigaas kaba dhammaanayee maadaama yuhuudi dilal badan ay la soo kulantay inaanay hunguraynin inay meesha ku noqoto markii qaysarkii aliskandar la dilayna 1 milyan iyo dheeraad yuhuuda baa ka soo hijrooday laakiin urub algharbiya baa istiri ku cadaadiya in falastiin la geeyo way ka sii hijroodeenoo maraykan bay iska tageen 90gii markii haddana ay yuhuudda kale raashiya ka soo hijroonaysay brotestanku waxay u arkeen markii hore fursaddaasi dhaaftay inaanay mar labaad dhaafin waa loo diiday yurub iyo maraykan inay degaan waxaa loo fasilitayt gareeyey in la dejiyo israa'iil milyan iyo dheeraad baa berigaa dhoweydna meesha la dejiyey caqiidadaasi ay ka dambeeyaan nimankaasi christian zionist oo aan odhan karo waa madaxdii ingiriis waxay rumaysnayd winston churchill baa ka mid ahaa kuwii rumaysnaa oo wuxuu lahaa laba calaamo oo la hele mooyaane yuhuud in meesha lagu celiyo waa raggii ku dhawaaqayay lawrence oliphant baa ka mid ah oo buug qoray land of jalcat la yidhaahdo masaladan kaga warramayo weliba kani buugu qoray wuxuu leeyahay carabta meesha deganna sidii loo galay hunuudul xumarkii maraykan deganaa ha loo gala buu leeyahay qiimo ma lehe fikraddaasi weliba wuxuu ka dhaadhicinayey ra-iisul wasaarihii baraytaaniya jazraa'iil la odhan jiray iyo wasiiru khaarijiyadiisii lord salisbury la odhan jiray ayuu fikradda u soo bandhigayey oo loo keenay ilaa dowla alcuthmaaniya lagala hadlay markaan soo koobo yahuud waxa meesha keenay waa christian zionism yuhuudi kadib waxay soo dhiiratay markii uu ku guulaystay ingiriisku wacdi beenbeena inuu u qaado carab oo ku yidhaahda dowladnimaan idin siinayaa dagaalkii koowaad ee dunida laakiin waxaan idinka codsanayaa turkiga inaad dagaalkiisa ila gashaan iyadoo la leeyahay turkiya may jebin karaynin ciidamadoodu qaabkay u dhisnaayeen laakiin carab baa waxay aqbashay tareenka xijaas iyo istanbul isku xidha oo caalam alislaami oo dhan ciidamada turkiga ee jooga zaadka u sida inay gooyaan tareenkaa markay gooyeenna ciidamadii ay lahaayeen turkiga iyo caalamka carbeed baa kala go'ay dabeetana waxaa la jebiyey ciidamadii meesha tan wakhtiga carabku sidaa u sheegayaan xagga kale wacdu balfoor baa socday oo dowladda maraykan iyo wilsonkii maraykan ayaa isku waafaqay carab inaan waxba la siinin laakiin yuhuudiin meesha la dejiyo carabna waxaa loogu warramayaa dowlad in laydin siin doono taariikh badan oo baabkaasi ku saabsan sisbeacon iyo wacdu balfour waxay u baahan tahay runtii in si gaara looga warramo laakiin uun muslimiintu iyagaana isjebiyey meeshana
yahuud waxaa keenay ingiriis iyo yurub iyo waddanka maraykan oo madaxdiisii u dambaysay iyana ay qaateen christian zionismkaasi ay qaateen madax badan oo maraykanku lahaa labadaa guruub oo isu tegay baa meesha tan dejiyey iyagaana go'aansaday dadkii go'aansaday inay yuhuudda meesha dejiyaanna weli waa loo dacwoonaya maraykanna intuu veto isticmaalay intii united nation jirtay ugu badan dhowr iyo 40 ka mida qadiyadda Israa'iil buu ku isticmaalay dhowr iyo 40 veto ayuu ku isticmaalay qadiyadda ay leedahay marka qudus gaala qaadatay yahuudi ma taagnaan karto ka dawla bani Israa'iil waanay rumaysnayn yuhuud oo dhan in badan oo ka midi laakiin waxay u taagan tahay danaha reer galbeedka inay fulinayso